Cilmicaan waa deegaan yar oo gobolka Banaadir uga beegan dhanka qorax ka soo baxa waxayna Muqdisho u jirtaa 35 kiiloomitir waxayna deegaan noqotay horaantii 1991 afar sano kadib xilligii la degay Cilmicaan waxay noqotay isha dhaqaale ee koonfurta Soomaaliya maadaama waqtigaas ay xirneyd dekada Muqdisho oo ay saameeyeen dagaaladii dalka ka dhacay dekada Cilmicaan waxay shaqeynaysay intii u dhaxaysay 1995 ilaa laga gaaro 2006 waa deegaan qurux dabiici ah iyo hawo macaan badana dadka ku noolna waa kuwa is yaqaan waxa jirta goobo ay isugu yimaadaan si ay isaga warqaataan intaada gudaha u gelin Cilmicaan waxaad arkaysaa marsada John Carlo oo ah ganacsade keeni jiray baabuurta iyo shixnada ganacsi oo ninkaasi gaar u lahaa waxaana marsadaasi loogu magac daray marsada John Carlo sida ay sheegeen dadka deegaanka John Carlo ayaa ahaa nin u dhashay wadanka Talyaaniga nolosha ka jirta Cilmicaan waa mid ku kooban kalluumaysi dadka degan halkan ganacsiga ugu badan oo ay sameeyaan waa iibgeynta kalluunka iyagoo si maalinle uga soo kalluumaysta badda qoysaska Cilmicaan ku noolna badana waa dad leh doomo yaryar ay ku soo dabtaan kalluunka xirfadoodana waa kalluumaysato noloshooda ku dabara dhaqaalaha ka soo gala kalluunka degmada waxay ku dhisantahay ganacsi kalluunka inta badan dadka waxay ka kalluumaysto khutulyoomkooda waxay ka jariyaan inta badan baddaas ilaa kale hadda maanta wax naga imaado ma jirto alxamdulillaah waa ku dhaqannahay degmada waxaan alyoomkeena ka raadinaa baddaas dooman aan u dirnaa alxamdulillaah ilaahay wuxuu noogu soo siiyo haddaan helno waa ku qarnaa haddaan ku waanin ilaahay mahad kule labada jeerba alxamdulillaah aad ugu dhaqannahay maasha Allah maskaxdooda kama goodo reer Cilmicaan maalmihii noloshooda asaasiga ay ka dabaran jireen xamaalkii dekadii Cilmicaan iyagoo ku sheegay tira badnida doomihii ku soo xiran jiray marsadii macmalka ahayd ee Cilmicaan amar waxa dekadu aad iyo ilaa isaan kismaayo halkaana dekadu aad meel kale waxa laga dejin jiray ma jirto meeshan aa u jeedid oo weyn dooman waa weyn oo 2,000 oo loor oo qaadaya halkii mar aa ku soo xiran jiray hal mar 20 doona soo xiranayso oo min 2,000 waa 400,000 oo loor hal mar dhigaysi magaalada ilaa iyo Soomaaliya ilaa Hargeysa ilaa Itoobiya meel kaas inta loo qaadi jiray 2006 ay naga xirantay isla markii waxaan isu bedeleen kalluumaysato in aan naqano qatarta ka kalluumaysiga xeebaha Soomaaliya ayaa noqotay mid ay aad uga niyad xun yihiin kalluumaystada danyarta ee ku sugan deegaanada xeebaha leh badanaa waxaa dhacda sida ay sheegeen in naftooda ay ku waayaan maraakiibta shisheeye oo biyo kulul ku sayrisa kalluumaysatada ilaa haatan waxaa la leeyahay kalluumaysta reer Cilmicaan oo noloshooda ku tiirsanayd ka kalluumaysiga badda iyo xamar inta u dhaxaysa dadka degan ka kalluumaystaan kamid nahay dadka marka meeshan hadda oo degan oo Ilaahay ku makanayo Cilmicaan joogaanahay marka dhibaatooyin fara badan qabnaan dhibaatooyinka aan qabnaan waxa kamid ah hadda wixii hore anaga awalba dhibaatooyin badan qabnaa hadda wixii ugu dambeeyay oo xanuunka nagu saameeyay zaa'idka waxayeen inay naga maqan yihiin dooman iyo dad muddo adiga gaaraysa dhowr iyo 20 maalmood ku dhadhow 20 maalmood ku dhadhow bagaarsan inay maqan yihiin dooman iyo dad oo 2 doonyood iyo 5 qofood ay naga maqan yihiin wax hadda kaalma ama waxna weydiiyo ama wax hadda noo yimaaday ama warsay wax idin xataa na yiri oo dhibaatadayna xataa wax naga weydiiyay wili ma jiraan idinka hor waxaa jira dadkii in la waayay oo la raadinay dooman aan dirnay shidaal aan qaadanay intaan wax isku aruursanay sida oo afayeenka oo u sheegay aan wax intaan isku darnay anaga qaaraan ahaan intaan galnay magaalada dadka oo doonleyda iyo deegaanka iyo intaan wax aruurinay aan ku raadinay ilaa shidaal aan ku raadinay baraawe ka shishe ilaa cadale iyo ka shishe aan tagnay dhowr maalmood aan ku maqnayn raadihiinana wax ilaa wili faraha lagu haayo ama aan aragno ma jiraan Cilmicaan ma laha adeegyada muhiimka ah nolosha wax kasta u baahan yihiin waxay u soo aadaan magaalada Muqdisho iyadoo si maalinle ah kalluunka deegaankan loogu soo suuq geeyo suuqyada Muqdisho sida ay dekada uga xirmatay gabaabsi ay sii noqotay nolosha deegaankan ka jirta waxbarashadeeda iyadoo waxbarasho iskool hadda kama jirin wiilal yar yar oo branch meel ah furtay ayaa waxbarasho ka dhigaan meel xarun caafimaad ma laho waa magaalo aad u weyn oo ilaa 2,000 oo qoys ay degan tahay meel caafimaad caawa haddii haweenka hooyo uur leh haddii fool ay qabato xataa meel geeyo meel macmal ah hooyooyin oo dhal oo muliso ah ayaa jiro oo umuliyo meel caafimaad ma haysano meel oo waxbarasho caruur oo rurta ay wax ku bartaan caafimaadka isbitaal ma jiriyo magaca Cilmicaan haddii aan u baxno Cilmicaan waa mar hore magac baxay balse 91 ayay degitaankeedii ugu horeeyay uu ahaa xilligii adiga oo waayadii hore
adiga sideetimeeyadii iyo wixii ka horeeyay ceelkii magacaas oo ku baxay waa duugmay ceelal kala la qoday nin ganacsade ee Suudi Axmed Jiise ayaa ceel qoday oo magaalada tubooyin geliyay magaaladii sidii hadda ay ku dhisan tahay waa deegaan nabdoon dadka degan ay ka jilaabtaan badda dhibka ay ka sheegtaan ayaa ah biraha raadiga intii ay dekadu shaqaynaysay ku aasmay dhulka iyo maraakiibta shisheeye labadaasiba wax ay hoos u dhigeen wax soo saarka ganacsiga deegaanka Ceelmacaan Maxamed Ciise Koona Goobjoog Muqdisho